بدن ودنك المهم sheekada halkay noo mareysay shalay toole sheekadu waxay noo mareysay gabdhihii iyo aniga waa inaan aniga ahaan waa inaan sheekada uga sheekeeyaa Soomaan aniga iyo gabadhii ila socotay oo naag si biza waan isku dayayaa inaan aniga isticmaalo okay anagoo islaantii la daala dhacayno kule hooyo anagu tahriib uma soconay maxay dir dhawaan soconaa aabahay baa igu sugaya islaantiina taagan tahay ma illa way idinku tahriib baad socotaan إلا وإلا يدين كوتشي تهريبيات ليديهين وإن بوليسك وجوهر يدر ربيع صار بحيني ديبا هل كان إسلامتي إسكس الصبينا ولنا هو مع عندنا قلة أنا قفون بسوب وحنايا بوليس ما حد يقول الضونيس إسلامتي حاشا لله قبل يرير باتين قبل هايو كلاتين قبل التهريب الصعدمية هو التهريب ومص عناني أباه مكوجو ديبين ثان وعو أبيه دبابين ثام قفابي وعضو وكلها اللي كورد وقبل ده محك عقل sheekadii naboon baansana bay ku tireen ninka kula hadlay isaga laftirkiisa xira waa magafa islaantani waabay ka horeysaaba iyaga bas gabadhii ila socotay ayaa waxay ku tiri in gabadhii la socotay aanu ma karayo aniga ahaan uga ma sheekeyn karano almuhim labadii gabdhood mid kamid ah waxay ku tiri intay ninkii magafa message u dirtay ku tiri islaantani mid naga foqaysa ma ahan wayna fahansan tahay inaan tahriib u soconay waxa dhan way naga horeysaa islaanta mid la siri kara ma ahe waa inaad baajaaj keelaaga meeshii gaadhidu soo istaagaan baajaaj inta noo soo dirto saa markan gaadhiga uga degno waa inaan baajaajtaada ku soo dhac baajaaj noo soo dir islaanta lama sheekaysaneen iyaga sidii islaanta ula daala dhacay bay dir dhaba soo galeen dir dhaba marka gaadhida halkiis day soo istaagaan gaadhidu keelaa ma naariyaga nidana meeshan gaadhidu ka baxan haleera almuhim meesha markay soo gaadheen baajaajtii buu imaan weeyay baajaajtu ninka magafa ku ruwa ni soo diraya baaba imaan weeyay oo way soo daahday saa markii gaadhigi looga soo degay islaatu marka alaabihi waxbay sidato korka gaadhiga bay saarnayeen alaabihi intay alaabaheedii wixii soo dejinaysan bay gabdhihii isjar de baajaaj meesha iska taagneed oo dad sugaysay baajaaj horta ma taqaanaan kuri okay wada taqaanaan ninkii halka iska dhajiyeen war yaa dhaqaaji carar nala car ninkii waxba fahmi la baa la cararay baajaajtii islaantina halkan yaabada halkan yaabanta war yaa baajaajta istaajiya gabdho tahriibaya saaran ninkum saga Soomaali ma fahmay carar markay ku dhaadeen isjaray markii magaalada dad dhawsa ugu soo wareeyeen ay ninkii waxay ku dhaadeen war baajaaj baan saaranay anagu dad dhabuuligan ma naqaaneen ninka la hadal baajaajlaha oo ku sheega meeshan joogno adigu mid kale noo soo dir deesasna ku qaado ninkii baajaajlaha baa u sheegay meeshii joogan baajaaj kale soo diray ninkii magafaha khalaas lacagtii waa la siiyay ninkii wiiska islaantiina de khalaas way baxsadeen bay ma daba cararaysa suuqa ninkan marka magafa waa oday weyn buu ahaa yani xarfiyan weyn gabdhaha yar markuu arkay uu ka yaabay ba halkeed socotaan idinku waliba tan imika gabadha qisada iskale aad bay u sii yartahay yani way jirtahay 16 17 bay ahayd hadaynan kaba sii yarayn laakiin waa taqaaniin de gabdhaha Soomaaliya ku nool iyagoo 8 jir aan wali gaarin bay maaragtay ma sha Allah 25 jir المهم نيكي ويابا وحو كوري إذن كالكاد سعطان أنو قبضو واوين بان سوغيه واحي شاكدان دي أودايكي بادانا برافيسكا ساريني كورا دين أديرو وكاسا ديباتا سانا كانتي بليس أناقو أدكيني نيس أدوك لعبون مرنا قرب أناقو يوروبان سعون نايس ولعبون نغا مربتين محاكا قلي دا دي ديو حايقا دي نينكم أول بو مقفوا ما مقفا نحاريس ليسكا ودبوكو واتهاوشينا guri buu geeyay wuxuu ku yiri gurigan igu sii suga dad kala waxay ka soo socdaan heerar idinka iyo dadkaas isku keen daraya hotel baan idin yani laba gabdhood baa tiin waxba day hotel inagala dooni mayo saacadood joogeen afar dadkii uu sugayay baa yimid hotel baa la geeyay hotelkii waxay ku leedahay markan saa u galayba anu wana shaqaraaracay hotelka quruxdiisa waxaan ku yiri nolosha ka jirta ay ku leedahay hotelkaas dib oo dabadeed anoo Yurub jooga xataa iga soo maray de waa exactly raaxadii aan iga sheekeeyo waxay ku leedahay cabitaanada iska daba dhacaya ismuusiga cuntooyinka keega xalawiyaadka raaxo nooci ugu dambeysay marka ninka wuxuu ku yiri laba cisho camal bad meeshan joogaysaan dad kalena waan sugayaa markaas aad baxaysaan gabdhihii markay jigjiga joogeen ay isqaybiyeen gaari 3 qof 4 qof lagu baraacay laba isku qaybiyeen inaad xasuudin garmay gabdhihii baa marka iyagana meesha loogu keenay ma sha Allah waa 6 ilaa 5 gabdhood hatta xalay weydii baan salaawan ilaa المهم 6 gabdhood tay meeshii wali isku yimidnaayade warka isiya seed hotelka halagu bishleeyo oo lagu baashaalo musiga dansiga dabaasha waxaan ku dhinta la iska xidho dadka dharkan deemaayoga dharkan dabaasha loogu tala galay gabdhaha bisaata inta loo baneeyay shibiska gabadhu markay iiga sheegaysay waan qiirood waxa kula hotelku anaga bas buu noo xidhnaa intayada gabdhood hatta gabdha kale meel kale nooga yimiday anagu waan diinay bay tiri intii aan jigjiga iska soo raacnay baan loo baneeyay markaas waxaan xidhnaa bay tiri dharkan dabaasha videoyaashan iska duuduubayno raaxan ugu dambeysay
dee sidii baashaalkii u wadeen ee waxaan kuri u raaxaysaneen hoteelka ugu tumanayeen baa waxa lagu yiri habeen dambe baxaysan istiyaari sidayadii oo kale waxa loo iibiyay boorsado dhar maxay ahaydey alaabahan yar kabaha wax walba hadda waxa loo socda Addis Ababa meesha lagu raaxaysanayo waa Dirdhaba iyagu marka annaga waxay nagaga fiicnaayeen Dirdhaba iyagu baashaal ku bilaabay annaga taayada Addis ma inooga bilaabantay de gaari madow baa loo keenayo iyagoo dhowr iyo 10 qof ah marka gaarigan intooda ma wada korayaan ee waa la isqeybiyay 5 qof oo kale waxa la iska dhigayaa family baashaal Addis Ababa haddii kale la wada gashinay de gaariga baa la isku wada qeybiyo waxaan ku dhidhac waxa la socda Addis Ababa markii saa loo keenayna hotelkii urdufka ahaa hotelkan ay ka sheekanaysaa leedahay waaba urduf bay taagantahay kan Dirdhaba sagaaba hotelka Addis Ababa kaale iska arag bay ku leedahay waan salba baxay daawatana lagu meeshan muddo joogaysaan dad kala dala la iska ururinaya marka ninkan mukhallaska Dirdhaba isagu ku hayay iska gudbinaya khalaas isagu mas'uulka ma wuxuu u gudbinaya magafa kale isaguna Addis Ababa mas'uulka yani Addis Ababa dhan ma taariikh magafahan marka Addis Ababa isagu wax ku maamulo waa naag weeye nin ma aha nadiira mi naagta magaceeda ani xataa waa maqlay waqtigeyga shaqeyn jirtay almiim naag caana bay ahayd naag weeyaan naag magafu waaba naag waa loo soo wareejiyay dee hoteelkii haddana iska baashaala iska raaxaysa shabiska wallaahi alcadiib raaxada iiga sheekaysa anaa isku malaynay inaan meesha joogayba markaa naagtan magafaha unbaa maalin waxay ku tiri gabadhan aad ma tegaysidba adigu maba tegaysidba maba socotidba adigu oo maxaa dhacay adigu waad yar tahay maxay ahaydey anigu awal baan dembi day waxaan waa awal baan dembi ku jiray inan yar markaa adigu difaac ma lihid waad yar tahay soo adiga waan kugu celinaya cidiini baan ku celin lacagna waan ku siinayaa taleefonna waan ku siinayaa wax walbood rabtana iga dalbo hooyadaa baan ku celinaya dee gabadhii baa ku tiri anigu hooyana ma lihi aabahayna maba garanayo meeshuu joogo anigu aslanna reejigaba maba ihi de maxaad iga rabtaa waxay ku tiri anigu ciddaadii baan ku celinayaa ciddii aad ka timid baan kugu celinaya waxaan waa tuumay waad yar tahay bay ku tiri anu waan cabsanaya dee gabadhi yarayd baa calaacal u bilowda ku tiri wallaahi bilaani hooyaday way dhimatay aabahayna warba igama haayo eedaday baa saa ii geli jirto haddaad celisid bay ku tiri haddunbaaba dembigii saxdaa lagaa la gashay oo anigu naf baxsanaysaabana naftaydan la cararaya nolol baa rabaa inaan samaysto eedaday anigu ma raba inaad dib iigu celisid dee islaantii baa ku tiri haddaba haddaanad eedadaa rabin ee hooyadaana dhimatay aabahana aanad warka haynin aniga ila joog anigaa ka gabadhayda ahaan kuu haysana yaa haabay ku tiri aniga ila joog waxbarashaan ku geynayaa wax walba jeceshaan ku siinayaa gabadhaydaad noqonaysa hadda laga bilaabo liibiya iska ilow bay ku tiri hooye macaan nadra miyaa naagta la dhahay heedhe ma raba bay ku tiri anigu saadii haysanaysa haddee aniga yaa almuhim islaantii bay dood halkaa isla galeen islaanta markay aragtay inaynan gabadhan yaridee mid joogaysa ahayn way iska fasaxday buuq dheer ka bacdi xataa waxay ku leedahay hoteelkiiba iga soo kaxaysay gurigeeda i geysay qasab weliba igu tiri wallaahi baanan ku dirayn anigu bartaas joogaysa amba edadaa baan ku celinaya raaxadii wixii bay iga soo kaxaysay kulaha dee islaantiisaan u bariyay ugu baroorin ugu calaacalayay way fasaxday bay tiri hoteelkiiba dib iigu soo celisay baashaalkii markay kasii bilaabay اسبوع mise 10 cisho camal bay meesha joogeen meeshay markaa joogeen buu nini ugu yimi nin iska socdo ninkaasi markaa wuxuu raadinayay walaalkii okay walaalkii oo isaguna iyaga la socdo tahriiba ahaa markaa way dhacdaa yani qof haduu adiga ka tahriibo ninka mukhallaska la xiriirisa waxaad ku dhahaysaa lacag kharash wixii kaaga baxay oo dhan waan ku siinaynaa qofka noo soo way jirtay markaa dad badan oo saas yani ku laabtay baa jira markaa ninkani lacagna muu siinin ninka mukhallaska lagu celin lahaa iyo kharashkii walaalkii ku baxay wuxuu iska rabaa inuu walaalkii iska wato de waxa yaa ka yeelaya kharash baa ku baxay waxa laga soo kaxeeyay maxay wiilku Soomaaliland miyuu ahaa hargeysa meelahaas laga soo kaxeeyay wuxuu ku yiri lacagtii aan ku keenay iyo lacagtay muddada ku joogeen maxay ahayd hoteelkan ay ku baashaalayeen baan ka rabaa haddii kale walaalka iska ilow baa lagu yiri wiilku wuxuu yiri ma taqaanaan walaalkay fasaxo aniga igu ninku markaa Addis Ababa uu deganaa isagu waxbarasho meesha u joogay ninkii dhanay waxbarashada u joogay kula walaalkay fasax aniga tahriib socday booskiisa igeli wallahi saan u qoslayay rafaadkan walaalkii ka soo celinayay isagu u socdaa anu waan fahmi waan ku celcelinay walaalkiiba ma wala dhashayda wallahi bilaa walaalkii de baski yaraa wala celiyay isagii baan soo raacay bay ku leedahay meeshii anagoo sidii u joogna baa gabdhihii de kow ay jigjiga ka soo raaci jireen markay 6 gabdhood ahaayeen 3 kamida waalidka
waalidkoogii baa meesha yimid oo way ogaadeen inay tahriibayaan waxaasoo dhan mukhaliskii iyagoon ogeyn iyagoon wadhaaba haynin bay mukhaliskii lacagtii iyo kharashkii kaga baxay siiyeen hal mar unbu aabaheed gabadha aabahood dee aabayaashood maa meesha soo istaagay soo baxnaya gabdhihii saacadaa ku wareegtay aabahay meesha keenay naya soo baxan ba lagu wuri nahaabadii hayn liibiyaad u socotaa miyaa soo bax laysma ogola ninka kharash waxaasoo dhan waan bixiyay buu ku wuri soo bax 3 kamida bartay taagnaayeen baa lagu reebay 3 baa isku soo hadhay hadda bis 2 caawan soo ogaanaya inay 4 gabdhood inay 5 gabdhood ahaayeen inay 6 ahaayeen almuhim 3dii waa laga reebay iyaga isku soo hadhay hadda baashaalku iska socdo ads waa la iska baashaalo hadda markii la yiri caawad baxaysaan yaa mise habeen dambad baxaysaan baa la isoo diyaariyay alla borsad exact yaa waxaan hadda ka sheekeynaya anoo soo maray waan garanayaa anigu inta garanaysaana way garanayaan intaan garanayna habeenka la baxayo borsad yar baa la iska soo iibsadaa biyo lagu ritaa cabitaano waxyaabay gabdho u baahan yihiin dee waa la isdiyaariyaa niyad iyo kashki laabta laga diyaar garoobaa dee waa la isoo diyaariyay waxaan ku wari hadda la baxaya